ugu jira aadan haddaad maqlayso bal waxaad nooga warantaa barnaamijyaad qorsheynayseen ee maanta inuu ka qabso magaalada Jabuuti iyo waxa iska bedelay sida la socotiin hore baad u maqasheen maanta bishu waxay ahayd 4 marka waxaan ugu baaqnay ahayd ummadda in barnaamijyo la sameeyo sida runta aan bilahan dambe oo dhan waa sameeynay marka ninka xukunkii ninka taligi tashada Ismaaciil Cumar Geelada wuxuu aad iyo aad ugu dhaawacmay mudaharadyada hore aan sameyn jirnay marka maanta wuxuu yiri waa in ay ciidamada soo bixin buu yiri waxa wuxuu askar haystay iyo military waa gartay oo kale security gaba inta oo dhan buu isku ururiyay wuxuu yiri albaabadaaban hor joojinayna askarta ciidamada u soo bixin buu yiri adiga hadda xageed joogtaa oo aad nagala hadlaysaa magaalada anigu hadda waxaan joogaa magaalada bartankeedaan joogaa waa tahay marka aad fiiriso hore waxaa loogu baaqay in banaanbaxyo maanta mucaaradka ay dhigaan ciidamo badan oo Jabuuti ay leedahay ayaa gaafureegay wadooyinka marka banaanbixii aawe ma baaqday ma u baaqan si wanaagsan buu u dhacay xaguu ka dhacay marka anagu been ma sheegayno sida xukunkan keligii tashadka dalka haysa been ma sheegayno mudaharadyadii hore dhacay waxay oran jireen 400 qof baa isku timiday waa meel 100,000 qof isku yimaadeen maantana waxay oran karaan haday doonaan 300 qof baa isku yimiday marka idinku waxa dhageysanina runtu waxa weeyii waa tamaaridka marka bal ii sheeg meesha waxay laga raalahaa ma ii sheegi kartaa meesha aad ku banaanbaxdeen waxaan helaynaa warar sheegaya in wax banaanbax aysan dhicin oo ciidamada dawladda ay haatan magaalada ay iyagu ilaalinayaan oo ay meel walba kaaga hor imaanayaan iminka sida aan kula hadlayo ciidankii uu kala tegay dadkiina annaga niri gurihiinii ku noqda waayo cadceeda aad u kulul maanta laakiin sida runta dad baa soo banaanbaxay kolka dhibaatadeeda keliya haatee sheegan karna anagu waxa weeyaan dadkii baa isku wada iman lahaa meel qurahaatay yaa la kala qorqooray oo la kala googooyay marka waxaan oran karaa 5 meelood oo caasimada Jabuuti kamida ayaan dadkii markii dambe telefoon u dirnay qolo waliba halkiina jooga baan laakiin marka dadka oo dhan la isku wada geeyo kana ay yareen 50,000 oo qof waa tahay aadan waxaa tahay nin mas'uul ayaa tahay dadweynaha reer Jabuutina way ku dhageysanayaan marka ma waxaad u sheegaysaa in barnaamijka mucaaradku qorsheynayeen maanta uu ka qabsoomay deegaanadaasi ku yaala Jabuuti xoog buu dhacay waxa qurahaatay inaad ogaatiin waxa weeyaan dhowr meelood baa la iskugu soo ururay waayo askarta oo dhigay biro dhigay xagee adigoo raaliya xagee kamida meelaha ay mucaaradku isugu soo baxeen oo maanta dibadbaxyada ka dhigeen waxa kamida oo meelaha aad loo ururay kamida meesha la yiraahdo biligsta la yiraahdo inaad garanaysiin kala mooyaan ilaa iyo kaabada waxa weeyaan 2 kiiloomitir ayaa la iswada daba joogay dariiqaas oo kii laamigii la marayay marka siyaabo loo xisaabiyaa jiro cilmiyana dadka tiradooda si loo helo halka kaabada iyo ilaa inta dadku isdaba joogeen waa 2,000 oo waa gartay marka aadan banaanbaxaasi dhageyso waa rectangle waxa laga raalaa marka banaanbaxaasi aad dhigteen wax ciidan oo aad aragteen ama iska hortimaadeen ma jiraan waxaa jira taan ku sheegay halka dadku ugu badnaa biligta la yiraahdo halka bay qiiq badan aad iyo aad u far badan ku aan dadka oo dadkii markii aan la joognay anagu indhaha aad iyo aad wax uga noqdeen biligta inta joogteen ma qiiq leedin ku furay yaa idin ku furay askarta lagu furtay military ba xitaa ku jiray marka meesha kale lagu ururay dhowr meelood baa jirtay waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa aadan Roble Cawaale hogaamiyaha mucaaradka dalka Jabuuti oo khadka telefoonka magaalada Jabuuti si toos ah ugu jiray waxaanu goor dhow khadka soo gelinay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf Maxamuud haddaad maqlayso bal waxaad naga warantaa horta guud ahaan xaaladda magaalada Jabuuti sida hadda ay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim dhulku magaaladu way iska degan tahay waxa banaanbax iyo mudaharaad laga hadlay ama jiraan
kolkaasi waa baaqi aan u jeedinay dadweyneheenii aan ka nidhi mudaharaadkaasi uma sharciyeysana dadweynuhuna aqaladiisii buu iska fadhiyo wax laga hadli karayo haba yaraatee ma jiraan dadweyne maaragtay wacyigelin u baahnayn dadweyne degan oo deganaashaduna qiimaha ay leedahay garanaya maanta waa mahad ilaahay mahaddana labaad waxaan u jeedinaynaa dadweyneheenii si fiican ugu jawaabay dawladdii baaqi ay u jeedisay shalay toole maxamuud cali yuusuf sida muuqata dadweynaha sida aad sheegayso dadweynaha iyaga ayaa gartay aad leedahay in ay baaqiinii dhegaysteen laakiin askar ayaad waddooyinkii dhoobteen si ay uga hortagaan isu soo bax inuu halkaasi ka dhaco ma moodaa inaad dadkii caburiseen oo aad awood u sheegateen abadan dadweynuhu hadduu doonayo inuu soo banaan baxo caskari baad sheegaysaa dabaabada haddii laga hor keeno ma joogsanayo waa ninkii arkay wixii ka dhacay Masr iyo Tunis iyo Libya 2-3 askariyo wadda la dhigay maxaan ku dhahay waxaas tusaale ma aha inuu dadweynuhu maaragtay cabsi qabo walaakiin annagu waxaa noo muuqata inuu dadweyneheenii uuna dhegaystay yani waxaan leeyahay hadalkii caqliga hadalkaas inay maqleen haddii dee la yidhaaho maya waa laga hortago dhowr caskari baa meesha la dhigo waa la laayay waxaas oo dhan waa been iyo balaayo iyo hadal jini weeyaan anigoo ku hadlaya afkii iyo magacii dawladda waxaan kuu sheegayaa walaal waa hadal runa waxaan kuleeyahay waxaan banaanbax ma jiraan سعادة الوزير محمود علي يوسف waxaa idaacadeennan aadan rooble uu noo sheegay in banaanbax uu ka dhacay qaybo ka mid a Djibouti bilig ayaa ka mid a weliba wuxuu sheegay in ciidamada ay qiiq dadka indhaha uga buufiyaan arrintaasi ma jirta baa leedahay waxba kama jiraan walaal mucaaridku kolleyba inuu muujiyo inay wax jiraan oo dhibaato ay ka dhacday ayuu ka dhigtay ra'smaal buu ka dhigtay iyo ganacsi uu ka dhigto inuu ku ganacsado maxaan ku dhahay dhiigii dadweynaha ayuu ka dhigtay siyaasad taasi waxaan leenahay ma jiraan anaa kuu sheegaya haba yaraatee 2 qof oo isa soo raacdo meesha u soo baxday meeshuu sheegayana bilig Djibouti kuwa taalaba kolka hadduu bilig taadii maskaxdiisa ku jirto mooyaane meel xaafad bilig la yidhaaho ma jiraan walaa bilig xagee ku taallaa marka maskaxdiisa ku dhex jirtaan u malayn laakiin bilig magaalo xaafad la yidhaaho magaalada Djibouti kuma taal waa tahay Saacad Wasiir Maxamuud Cali Yuusuf hadda banaanbixii waad ka hortagteen ciidamo ayaad waddooyinkii magaalada Djibouti ku yiilo dhan aad dhoobteen si aad banaanbaxaasi u joojisaan muxuu yahay markaa qorshaha dawladda u degsan ee ku aadan banaanbaxyadan ma sidan ayay ciidamadu u dhoobnaanayaan waddooyinka tan iyo inta ay mucaaradku ka tanasulayaan banaanbaxyada ay qorsheynayaan walaal anu ciidanadaad sheegaysid ma laakiin magaalada maanta oo leen baa sidaa u dhex marayay dhowr booliis oo meelaha taagtaagan haddaad ciidana ku sheegtay anu waxaasi uma malayna inay tahay ciidano laakiin haddii aad leedahay mudaharaad dambe may dhici doonaan su-aasha ugu habboon taa weeyaan haddii aad shaqadiina aad qabsanaysiin haye maxaad kaga jawaabaysaa taab dambe may dhici doonaan weeyaan su-aashu annagu waxaan leenahay dal dimuqraadiyeed baan ku noolnahay mudaharaadku weligoodba way sharciyeysaneen waa loo asmaxi jiray ruksad bay lahaan jireen waxaan leenahay un dadka madaxda mucaaradada baaqna waan u jeedinaynaa waxaan leenahay haddii aad doonaysiin inaad shaqo siyaasadeed aad qabsatiin kaalaya dawladda la sheekaysta mudaharaadkiina sidii habbooneed aad u qaban qaabin lahaydeen aan nii sheegno shuruudeedana la kaalaya waa tahay Saacad Wasiir ma ahin inaan la yidhaah waa tahay Saacad Wasiir aad baa la yidhaah ciidamada meesha joogo dadkii baa laga hortagaya waxaasoo dhan wax hadal jira maahin baan kuri walaal waa tahay Saacad Wasiir aad baad u mahadsan tahay waa ku salaamayna walaal